السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن والله أنا قحرا نبي السعودي حلقوين كي بدناي يعني قال لأني تاريخ ذي دولة عثمانيين تا وصومرتي مرحلة كل دوين ما أنت وحن مرنا حيث هو حلقة ذي توانات يوم boqorkii sagaalaad ee hogaamiya dowladda Cuthmaaniyiinta. Marka maanta boqorka aan uga hadlayno boqorka sagaalaad ee dowladda Cuthmaaniyiinta magaciisa waxaa la yiraahdaa Saliimkii koowaad. Dabcan markuu xukunka uu qabsaday uu la wareegay waxay markaasi magaciisii maqaamkiisu u noqday in la yiraahdo Yawuz Sultan Selim. waxaa weeye marka magaciisa waa saxda waa Selim sultaanna waa sifaadkiisii uu ku hogaaminayay dowladda Cuthmaaniyiinta kuna noqday boqorkii sagaalaad ee dowladda Cuthmaaniyiinta. Yawuz Sultan Selim waxaa weeye waa sidaan hore usoo sheegnayba waxaa awowgiisii ah boqorkii la oran jiray Sultan Maxamed al-Faatix aabihiisna uu maaragtay ka dhaxlay awowgiis sultanada waxaa la oran jiray waxay ahayd Bayazidka labaad. maanta marka waxaan ka hadlaynaa waxay tahay waa marka ninka la yiraahdo Saliimkii koowaad iyo hogaamintii uu hogaamiyey dowladda Cuthmaaniyiinta. Selim wuxuu dhashay sanadku markuu ahay 10kii Oktoobar 1470 ayuu wuxuu ku dhashay magaalada la yiraahdo Amasia. maanta aan ku soo haddaan ku soo celiyo horta codkayga ma maqashaan codkayga soo okay ma mise waa haddaan maqashaan insha Allah waa maqalnaa soo qora. Yawuz Sultan Selim wuxuu dhashay sanadku markuu ahay 1470 10kii Oktoobar ayuu wuxuu ku dhashay magaalada la oran jiray Amasia. Yawuz Sultan Selim marka sidaan hore usoo sheegnay wuxuu kaga duwan yahay boqoradii iyo sultaamadii soo kala gaabiyay boqortooyada Cuthmaaniyiinta waxaa weeye inuu asaga yahay khaliifkii islaamka ee ugu horeeyay ee qof Turkish ah uu noqdo khaliif ama qowmiyadan Turkida ee khaliifnimada ula soo wareegato kala wareegto markaasi dadkii dhaxal ahaan uga haystay dowladdii Cabbaasiyiinta ee Cuthmaaniyiinta ka horeysay. marka Yawuz Sultan Selim waxaa la yiraahdaa marna waa boqorkii sagaalaad dowladda Cuthmaaniyiinta marna waa khaliifkii 88aad ee islaamka ilaa markii laga soo bilaabo nabigeena sallallahu alayhi wasallam ilaa iyo maaragtay khulafadii soo socotay oo ay afartii khulafay soo qabtay kadib ay soo wadeen laga dhaxlay ilaa iyo markaas ay ku soo wareegto dowladda Cuthmaaniyiinta ama dhaxaltooyada Cuthmaaniyiinta ay ku hogaaminayaan khaliifka ay ku noqonayaan khaliifka islaamka ama khaadimul haramayn shariifeen waagaas magacaasi masabkii u lahayn. ninka marka Yawuz Sultan Selim sidaan hore usoo sheegnayba markuu aabihiisii xilku afgambiga la wareegay dabcan khilaafaad badan baa yimaaday carqalad badan baa yimaaday isbedel baa yimaaday dadka qaar way dhaleecayaan dadka qaarna waxay leeyihiin maadaama isaga aabihiis uu xoogaa qof xanuunsanna uu xanuun iyo da'an isugu tagtay inuu maqaamka iyo dhaxalka u wareejiyo ee ku qasbaneed. marka Yawuz Sultan Selim markuu noqonayo dabcan boqorka sagaalaad dowladda Cuthmaaniyiinta waxaa weeye marxalado kala duwan bay la soo martay juhdi dadaal badan buu soo maray waa u soo rafaaday. markuu asiga aabihiis xilka kala wareegay dabcan waxaa khilaaf markaas soo kala dhaxgelaya ama isugu qabsanayaan isaga iyo walaaladiisa sidaan hore usoo sheegnay ama xalqooyinka hore uga daalan kartaa khaliif walba ama sultaan walba markuu xilka ka dhinto ama uu ka wareego in wiilashiisa qaar ay isu qabsadaan. haddaba ninka la yiraahdo marka Yawuz Sultan Selim isaga aabihiisa ayuu afgambi kaga sameeyay xilka kala wareegay maadaama uu fariintiisa ka wareegno fariin buu u diray ku leeyahay aabbadig waa duqooday ama xukunka sidee tahay uma wadid waxa weeye ii sheeg xilli aad wareejin lahayd baa la gaaray. marka aabihiisa waa ku wareejiyay sidii uu ku qabsaday Yawuz Sultan Selim kuna noqday boqorkii sagaalaad ee dowladda Cuthmaaniyiinta. kadib Selim waxaa dhacday marka in asiga walaalihiisa iyo khilaafka soo kala dhaxgalo iyaga dhexdeeda maaragtay isku dagaalaan saldanada ay qaarkood leeyihiin annaga may aabaheena nool annaga ma noqon karno ama qof annaga namidan isku kala soo sharaxi karo. marka waxa weeye Yawuz Sultan Selim isaga dabcan markuu xilka la wareegay waxay ahayd uu la wareegay 1400
iyo hadduu ilaah yiraahdo taariikhda way ku xusan tahay marka taariikho kala duwan baa dadka horta codkayga si fiican loo maqlaa codkayga hadduu fasaxaya insha allah soo sheega marka Yawuz Sultan Selim waxa weeye intuu markaas aabihiisa kala dhaxlay xilkii uu kala wareegay wuxuu qaaday duulaamo badan dabcan halkiisii uu ka sii waday marka boqortooyada ama dowladaha Cuthmaaniyiinta waxa weeye boqor walba hogaamiyo waxa lagu yaqaan waxay ahayd in markuu maqaamka iyo saldanada uu la wareego iisha uu horay markaasi ka sii wada fatxigii ama furashadii gobollo badan iyo magaalooyin badan iyo dalal badan marka يا سلطان سليم كان هذا نيشيء إنه بقر كسجالات نقلنا دونا أمريكا أما خليفة سديدات الدولة العثمانية وحاول إن هو فرن دونا مركزي قارض يوروب كل بدن وكقبض دونا إلى 1,000,000 أو متر سكوير عملوا كلا نك إيشيا سدا سوكا حتى أفريقيا وكقبض دونا لو ريق دونا دللا بدن يقول بدن مركا وحال ورن كلا وحيد تايو سلطان سليم xukunkii isaga uu waday iyo nidaamkiisii isaga dawliga ee dowladda Cuthmaaniyiinta uu ku waday si toos inuu la wareegayo markaasi wadamadan Carabta sida Masar iyo wadamada ku dhow Iran xataa uu la wareegi doono ilaa Afrikadaas uu soo gaari doono marka Yawuz Sultan Selim waxa la dhigaa wuxuu kala wareegay Cuthmaaniyiinta wuxuu keenay heer markaasi heerkaas ka sii weyneed ay ka sii xadaarad badneyd oo ay kaga duwaneed markaasi sideedii hore markaas waxa la oran karaa waxay tahay in Yawuz Sultan Selim uu yahay nin ama amiir ama khaliif ilaahay maaragtay ku galladay dadaalkiisa iyo kartidiisa juhdigiisuna kula wareego dhulal badan iyo caasimado badan oo kaga qabsanay waagaasi gaaladinooda marka Yawuz Sultan Selim wuxuu kaloo caan ku ahay waxa weeye ii sheeg in marka uu gala wareegay uu kala dejiyay nidaamkii kadib waatan soo sheegnay aabihiis uu duulaan ku qaaday qoladii Masar ka talin jirtay iyo Suuriya iyo Ciraaq la magac baxday kana dhax hoos dhalatay dowladda Cabbaasiyiinta magacooduna uu ahay mamluukiyiinta markuu beesadka la wadacan mamluukiyiinta uu dagaal ku qaaday uu ku jihaaday inta goobadan uu ka qabsaday laakiin Masar toos u muusan wareegin laakiin Yawuz Sultan Selim isaga marka waxa weeye waa amiirka la wareegi doona Masar kana xoreyn doona markaasi nimanka mamluukiyiinta ka hoos dhashay dowladii Cabbaasiyiinta marka waxa la oran karaa waxay tahay marka Yawuz Sultan Selim isaga dadaalkiisii wuxuu toos u sii aaday markaasi wadamadan Yurubta iyo Asia iyo ilaa Afrikada kadib sanadku markuu ahay marka 1400 yani 1517 dabcan wuxuu toos u wareegay marka duulaankii uu ku qaaday Masar kadib inuu Qaahiro markaas si fiican loogu soo dhaweeyay oo markaas ii sheeg si halkaas toos u galay dabcan intuu markaas kula jiray dagaalka nimanka mamluukiyiinta Masar iyo wadamada u dhow gobollo badan oo ka qabsaday marka sanadku markuu ahay ama taariikhdu markay tahay 29 Agoosto 1516 ayuu si toos ah uga la wareegay dhaxalkii nimankii maaragtay ka farcamay Cabbaasiyiinta ee markaas haystay ciwaanka ama magaca iyo mansabka khulafada ama khaliifnimada Islaamka khaliifnimadaas oo ka timaaday ilaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam soo gaartay ay kala wareegeen afarta khulafo ilaa ay tartiib loo soo kala dhaxlay Cabbaasiyiinta la wareegeen Cabbaasiyiinta gabagabadooda iyo Cuthmaaniyiinta bilowgooda marka Yawuz Sultan Selim isaga taariikhda waxa uu goonay ugu jirto waxa weeye inuu isaga toos u la wareegay khaliifnimadii Islaamka waana ninkii ugu horeeyay ee qowmiyadan Turkida la yiraahdo ka soo jeeda ee la wareega khaliifnimada Islaamka marka sidan taariikhdu xusnayba 1516 ayuu la wareegay khaliifnimada Islaamka sidaas ayuu magac ku qaatay ama ciwaankiisa uu ahay Khadimul Haramayn Sharifayn oo markaas Makka iyo Madiina ugu ahay qaadinkiisa marka Yawuz Sultan Selim dagaal badan uu ku furtay wadamadan aan soo sheegnay kala ah Iran iyo Ciraaq iyo Suuriya kadib hadafkiisu wuxuu ahaa in Masar uu sii gudbo Masarna waa ku guuleystay wadamo badan oo Yurubtaana dagaal uu ka sii galay oo ku guuleystay oo ka qabsado intaasna marka waxa weeye marxalado kala duwan iyo dagaalo badan oo soo kala galay marka waxa hadda Cuthmaaniyiinta marka taariikhda laga sheekeynayo ay dadka inta badan ay ii sheeg xusaan ama si gooni lagu fiiray waxay tahay in xukunka boqorka haayo awlaadiisa markaasi si gooni ah ugu kala diro gobollo badan si ay u soo qaataan internship and practical hogaaminimo si loogu tijaabiyo inay dawladda hogaamin karaan marka qof aan la soo tijaabin ba isaga xukunka dawladda Cuthmaaniyiinta inuu la wareego aad buu adkay marka Yawuz Sultan Selim isaga yaraantiisii markuu dhashay ilaahay maarta ku soo weynaado cilmiga ka barto oo diinka ka bartayba wuxuu hogaaminayay ama wakiil uga ahaa wali ka ahaa gobolka la yiraahdo Trabzon
halkaas ayuu cuthmaaniyiinta xukunka markaas marka uu haysta meeshaas maamula uu ahay sultan sano halkaas uu maamulaya kadib markuu aabihiisa siyaasadiisii iyo xoogaa culays badan uu ku yimaaday uu kala wareegay saldanada waxa weeye ii sheeg inuu markaasi ninka la yidhaahdo Yawuz Sultan Selim heerka ay cuthmaaniyiinta joogto heerka wan uu sii gaarsiiyey sidaasna maanta ay ciwaanka ama hanashada khaliifnimada islaamka iyo dowladda cuthmaaniyiinta horumarkeedaba isaga isugu tagtay kadib waxaa dhacday marka sanadku markaa isla 1516 markuu la wareegay khaliifnimada islaamka masar si fiican u degay oo qaahiro uu la wareegay maqaamkii nabi yuusuf calayhi salaam uu tegay uu halkaas kursiga markaas waxaa jirto yaalay oo markaas boqortooyada laga hogaamin jiray masar inta badanba laga dhaxlay ambiyadii waagaas soo martay nabi yuusuf iyo ambiye kaleba halkaas ku fariistay ninka la yiraahdo Yawuz Sultan Selim looguna sacabtumay laguna soo dhaweeyay inuu yahay khaliifkii 88aad dowladda islaamka ama maaragtay hoggaanka diinta islaamka markaas lagu oran karay markii marka khaliifnimada uu soo qaatay dabcan wuxuu tagay kacbadu tagay halkaas uu maaragtay madiina ku soo booqday halkaas marka dabcan si toos markuu la wareegay ama dowladda Cuthmaaniyiinta dowladnimada halkaas ay ka gashay isla markii Yawuz Sultan Selim wuxuu ku dadaalay waxay ahayd amaanadii khulafadii ilaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam laga soo bilaabay ilaa ay khulafadii ka hoosiyay ay kala wareegay maqaamkii hoggaanka islaamka amaanadii ay ka tageen sida safety iyo dhaxalkii kale iyo alaabtii kale iyo qaniimooyinkii kale ay xasuusta u haysteen dowladihii islaamka markaas ay hayay in uu ka soo wareejiyo markaas Makka iyo Madiina uu ka soo raray maadaama Makka iyo Madiina waagaasna amaankooda uusan aad u degnayn oo ay lagu kalsoonaan karin maamulka markaas meesha hayay sabab la xiriir nimanka mamluukiyiinta ah ee Cabbaasiyiinta ka hoos dhashay markaas Cabbaasiyiinta waxa loo kala waxay tahay laciif dumiskooda ama dhamaadkoodii ay ahayd marka khaadim al-Haramayn al-Sharifayn ama khaliifka 88aad ee islaamka ahna boqorkii sagaalaad ee dowladda Cuthmaaniyiinta Yawuz Sultan Selim isla alaabtii markuu soo qaadayba wuxuu keenay magaalada Istanbul uu ku xifdiyay halkaas qasri lagu xifdiyo amaanadaas lagu ilaaliyo uu u sameeyay kadib markuu khaliifnimadii soo qaatay wuxuu yimaaday magaalada Istanbul sidaan soo sheegnayba halkaasna loogu dhaariyay looguna hambaliyay looguna caleemo saaray inuu noqdo khaliifkii 88aad ee islaamka marka Yawuz Sultan Selim wuxuu caan ku ahaa waxay tahay furashada gobollo badan iyo qaarado badan waa uu kaga duwanaa waxay awlka hore awooyaashiis aabaashiis markii taariikhdu laga hadlayo aan hore usoo sheegnayba 3 gobol 4 gobol ama hal dal ama hal boqortooyo inay la wareegaan laakiin ninka la yiraahdo Yawuz Sultan Selim isaga jihaadkiisa waa ka duwanaa sidaasi oo uu kula qabsan jiray markaasi qaaradda Yurub oo kale ilaa iyo markaan soo sheegnayba 1 milyan ka badan oo mitir square oo dhul ah inuu ka qabsaday oo u dhigay dhulkaas inuu yahay dalal adiga dhowr dalo amal oo kala Asia ayada haba sheeganba oo toos u la wareegay oo waagaas waxaa jirta markii niman dowlad Shiiciya oo la yiraahdo Safawi markaas ka dhisnaa Iran ayuu la dagaalamay wuxuuna dagaalkooda markaas uu la galay Iran la wareegitaankeedaba 4 Febraayo 1510 Febraayo ayuu la dagaalamay 1500 ilaa 10kii ilaa 13 marka khaliifka islaamka isagoo khaliifka islaamka noqday jihaad badan buu sii galay markuu intuusan noqon ka horna dagaal iyo duulaan badan oo ku xoreynayo gobollo badan isugu jira muslim iyo غير muslim oo ku xoreynayo marka Yawuz Sultan Selim ciwaankiisa ama mansabkiisa maqaamkiisa waxa Ilaahay ku sharfay inuu noqdo ninkii ugu horeeyay ee ka soo jeeda qoomiyadda Turkida ee la wareega khaliifnimada islaamka marka sidaas marka waxa ku bilaabatay waxay tahay in khaliifnimada ay si toos ugu soo wareegato dowladda Cuthmaaniyiinta iyo boqortooyada Cuthmaaniyiinta kadib sanadku markuu ahay marka ilaa intuu dhaxayso 1505 ilaa 1500 waxa weeye ii sheeg 20kii inta u dhaxayso marxalado kala duwan ayuu la soo kala maray gobollo badan lagu sii xoreeyay dalal badan waa lagu sii xoreeyay gobolba ay qabsadaan inay calanka Cuthmaaniyiinta markii laga taago calanka islaamka ku qoranta la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah iyada nafteeda awlkor way ka agtaagan laakiin haddana maadaama khaliifnimada ay haysteen dhaxaltooyo qolo kamid ah Cabbaasiyiinta ka hartay markay si toos Cuthmaaniyiinta ula soo wareegeen marka calankii iyo waxa weeye ii sheeg kursigiiba si toos ay u soo wareegsadeen Cuthmaaniyiinta isla sidaas marka meel ay xoreystaanba calankoodii calanka islaamka ay ka taagayeen maadaama markaas si rasmi ah ay ku haysteen xukunkii ama khaliifnimadii dowladii islaamka ama khaliifkii 89aad maadaama uu yahay marka Yawuz Sultan Selim isaga
marxaladaas uu soo kalmaray sidaan hore kusoo sheegnayna waxaa weeye waa nin dhul badanna furtay qaaraad badanna qabsaday markaasina isku darsaday laba magac ah inuu yahay suldaankii ama amiirkii sagaalaad dowladda cuthmaaniyiinta ahna khaliifkii sideedaad ee islaamka. marka Yawuz Sultan Selim waa nin wuxuu ahaa ku dadaalaya markaas meel walba uu tagaan masaajidada uu ka dhisayo, madaaris uu ka furayo, diinka iyo dhaqanka iyo waxa weeye sheeg falsafada iyo taariikhdaba dad badan lagu barayay oo goob walba uu tago markaasi masaajidna inay ka dhisaan, madarasana in laga dhiso. sidaas ayaa marka dowladda Cuthmaaniyiinta fikirkeeda ah inay ku guuleysato qaarado badan, inay ku guuleysato maaragtay qaarado badan inay furto ayay halkaasi nasiib u yeelatay. marka in khaliifka islaamka sideedaad uu noqdo ninka la yiraahdo Yawuz Sultan Selim ahna boqorkii sagaalaad dowladda Cuthmaaniyiinta si fudud kuma simaan, juhdi dagaal badan buu u galay, waxa weeye rafaad badan buu u maray. marka Yawuz Sultan Selim isaga waxaa taariikhda ugu jirto sidaan soo sheegnayba inuu yahay nin aad u dadaal badan, diinka islaamka wax badan u soo qabtay. dabcan xukunka markaas intaas uu jiray dadka qaar way dhaleeceyn kara, qaar waa ka fikir duwanaayeen, qaarna waa ku taabacsanayeen, laakiin haddana waxa weeye aktaru naas markii la fiiriyo inay aaminsanaayeen waxqabadka Yawuz Sultan Selim ilaa al-aana marka uu ka mid yahay boqoradii ugu saameynta badnaa uguna magac dheeray dowladda Cuthmaaniyiinta. isagana maadaama uu dheertay inuu yahay khaliifkii sideedaad ee khaliifnimada islaamka. marka insha Allah tacaala xalqadeennii 10aad halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa aan uga hadlaynaa boqorkii sagaalaad ahna khaliifkii sideedaad ee dowladdii islaamka iyo dowladda Cuthmaaniyiintaba uu markaas ku hogaaminayay ninka la yiraahdo Yawuz Sultan Selim. waxa weeye insha Allah waxaan u xigi doontaa xalqooyinka sii xigana aan u hadli doonaa boqor walba iyo khaliifnimadii uu asiga kusoo hogaaminayay Cuthmaaniyiinta iyo islaamkaba. sidaas markaas Cuthmaaniyiinta guulo badan ay ku gaari doonto heer ay gaarto ilaa qaaradaheeda iyo wadamo badan inta isku keento markaasi hal lacag iyo hal nidaam laga wada isticmaalo ay noqoto hal dowladdaas oo leeyahay dowladda Cuthmaaniyiinta. sida Soomaaliya taariikhdeeda ku xusan ama buugaagta caalamka ku xusanna dowladda Cuthmaaniyiinta haddaan xasuusino ilaa Soomaaliya goobaha ka soo gaarto waxaa ka mid ah Zaylici, waxa weeye Berbera, goobahaas oo dhan ilaa Harar ee Ethiopia ka tirsan, meelahaas dhanba Djibouti inay dowladda Cuthmaaniyiinta hogaaminaysay ama xukumaysay ku dhawaad 300 oo sano in ka badan. marka ilaa 250 dadka qaar way dhahaan sanadihii Cuthmaaniyiinta xagga joogtay. marka meel walba ay tagaanba in dowladda Cuthmaaniyiinta ay gaarsiinaysay waxay tahay in diinka islaamka, dhaqanka islaamka, madarasada, waxbarashada maadi iyo diiniba dadkaas halkaas inta loogu geeyo, lagu tababaro, lagu nidaamiyo. marka dabcan dowladda Cuthmaaniyiinta waxyaabaha tiir dhaxaad ku ahay, udub dhaxaad ku ahay ee awooddaas u gaartay waxay ahayd in ay ku taagnaan mar walbaba hoggaanka ama daacad u ahaanshaha diinteena suuban iyo ummadda muslimiinta. marka dowladda Cuthmaaniyiinta meel walba ay tagtaba waxay ka bedelaysaa systemka ah in is adoonsado, in maaragtay ribadoo kale ganacsiga oo ribada ku jiro kale la zuuliyo, in dadka maaragtay wadooyinka uga muslimiinta dhibaya laga zuuliyo oo lagala dagaalamo, laga celiyo. waxaa kulli jira dad badan oo qowmiyado kala duwan isugu jira yahuud iyo islaam iyo kristaan, waxa weeye sheeg wadamo badan iyo qowmiyado kala duwan ka kala dhashay diiman kala duwan aaminsanay in dowladda Cuthmaaniyiinta si nabad ugu hoosnaalaayeen. kadib dabcan Yawuz Sultan Selim isagana wuxuu geli doonaa markaasi magaalada la yiraahdo Qudus oo ku yaalo Masjid al-Aqsa, kaas oo hadda taariikhda ku xusan inuu yahay qibladii ugu horeysay ee aan yeelano. marka waxa weeye sheeg taariikhdiisa Yawuz Sultan Selim waxay u badnayd waxay ahayd furashada wadamada islaamka. markaas wadamada qaar ay gumaysan yihiin Faransiiska iyo dowlado kala duwan ee boqortooyo kala duwan. laakiin marka Cuthmaaniyiinta soo baxday waxaa halkaas ku burburay siyaasadda reer galbeedka iyo wadamo badan baa boqortooyo badan ku taaminayeen, taas oo ah in la dulleysto ama la adoonsado wadamo badan oo islaamka. marka Yawuz Sultan Selim waxa weeye waa nin xoreeyay qaarado badan, wadamo badan oo Yurub ka tirsan, Africa iyo Asia. sidaasna marka calankiisa uu ku taagay. dabcan Yawuz Sultan Selim ilaaha u naxariistay 22 September 1520 ayuu ku geeriyoon doonaa magaalada la yiraahdo Chorlo. halkaas waxaana taariikhda ku xusan sida ay sheegaan dadka inuu xoogaa xanuun helay, xanuunkaasina uu geeriyooday da'diisu markay ahayd 49 sano, khaliifkii sideedaad ee dowladda islaamka iyo boqorkii sagaalaad ee dowladda Cuthmaaniyiinta. marka
dowladda Cuthmaaniyada markii la aasaasay dowlad islaam u baahed marka khaliifnimada la soo wareegtayna awoodeedii iyo magaceeda waa kasii weynaaday sidaas ayaana lagu helay ummad mid ah iyo shucuub midaysan nabad iyo walaalnimo ku wada nool insha Allah tacaala marka waxaanu xogi doonaa waxay tahay xalqada xigta oo hadli doonaa khaliifnimadii iyo saldanada Cuthmaaniyiinta heerkii ay sii gaartay iyo sida loo sii qabsaday ay guulo weyn ugu sii gaartay marka insha Allah tacaala xalqadeeni maanta halkan ayaan kusoo gabagabeynayna aan uga hadlaynay iyagu sultaan Saliim ilaah ha u naxariisto waxyaabaha usoo qabtay diinkii iyo dadkaba ilaah ka abaalmarin ayaan leenahay insha Allah tacaala idinkana acmaasha iyo dhammaanteed acmaasha iyo soonkii salaada Allah naga wada aqbalo وإنه يحلق ضد بهدي إلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.